hay-adda Haro ayaa deeq biyaha gaarsiisay degmada Dacarta ee gobolka Maroodijeex. deeqdaasi biyaha oo ay tiradeedu dhammayd 10 booyadood ayaa waxay gaarsiiyeen deegaamada hoos yimaada degmadaasi Dacarta. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo hay-adda Haro uga mahad celiyay deeqdan biyaha ay soo gaarsiisay gudoomiyaha degmada Dacarta iyo sidoo kale dadweynihii biyaha si la soo gaarsiiyay. marka hore Ilaahay baa mahadle mar labaad hay-adda Haro ee noo keentay 10 booyadood ayaa iyadoo mahad labaad leh. hay-adda Haro wayna soo gaareen biyaha inoo keeneen 10 booyadood bay inoo keeneen waanu ka gudoonay alxamdulillah rabbil caalamiin iyo madaxdii la socotay degmada Dacarta ay keeneen. aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda Haro waxa weeyaan degmada Dacarta oo ka tirsan gobolka Maroodijeex ku soo caawisay xilli oo maraa 10 booyadood biyaha iyagana waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo ugu mahadnaqaynaa halweynada hay-adda oo u horeeyo maxay Maxamed Cabdiraxmaan waxaan leenahay maxay Sheekh Ciise iyagana waxaan leenahay miisaanka sanadka Ilaahay ku daro hawsha ay dadkiina loo shaqeynaysan habeenimo baan u taagantihiin iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ku hadlayay afka hay-adda Haro ayaa ka hadlay deeqdan biyaha ay gaarsiiyeen degmada Dacarta waxaanu geesta kale dadweynaha ku nool degmadaasi ku buuriyay inay biyo xidheen sameystaan xilliyada roobka si ay dadku uga baxaan biyo la'aanta soo food saaraysa xilliyadan jiilaalka. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay hay-adda Haro inoo soo gaarsiisay gargaarka biyaha biyo dhaanka oo aanu keenay degmada Dacarta iyo tuulooyinkeeda hoos yimaada. maamulka sare ee hay-adda Haro aad iyo aad bay ugu mahadsan inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah waqtigan lagu jiro kulaylka ama maaragtay kaliisha ee biyuhu ku yaraadeen deegaanka. Haro waa hay'ad samafala oo maaha markii koowaad ee degmada Dacarta timaado waxay ka shaqeysaa maaragtay gargaarka degdeg ee abaaraha raashin qaybinta arrimaha caafimaadka waxaasoo dhan bay ka shaqeysaa xafiiskeeda Hargeysa dhammaan gobolka Maroodijeex iyo Somaliland mandaqadeeda oo dhan. marka maanta aad baan ugu faraxsanahay dadkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maaragtay ka faa'iideystaan biyahan oo aan khasaarin xoolahoodana ku waraabsadaan iyo dadka raadan. dadka deegaanka waxaan ku dhiirigelin lahayn inay ka faa'iideystaan waqtiga roobku doonay biyaha qabsadaan. sanad kasta waxaynu ognahay inay roob badan Ilaahayna siiyo subxaanahu wa ta'aala laakiin aynaan ka faa'iideysan marka taana dadku ay ka faa'iideystaan.